qalabka koowaad ee aan ka hadlayno waa raajada. raajada waa qalabka loogu isticmaal badan yahay isbitaalada iyo goobaha caafimaadka. raajada waxaa alifay markii ugu horeysay nin loo yaqaan William Conrad Rontgen 1895. raajada waxay soo martay casriyo kala duwan iyo casriyeena marka dambayso waxay soo martay xilli takabaanka oo kale ay ahayd, balse waqtiga oo isbedel awgiis hadda waxaa la isticmaalaa raajooyin aad casri u ah kuwaas oo si automatic ah u shaqeynayo una sawirayo una soo saarayo qaab digital ah oo aad wax ka bedeli karto markaad u baahato. haddaba raajadan casriga ah ayaa waxaa aad loo isticmaalaa isbitaalada iyo goobaha caafimaadka oo idil si loo go'aan qaato. raajada waxaa loo isticmaalaa in lagu xaqiijiyo xanuunada ku dhaca lafaha, gaar ahaan lugaha, gacmaha, faraha, feeraha, lafaha meel kasta oo ay galaan. haddaba inkastoo ay faa'iido badan tahay X-rayda ama raajada, weli waxaa jira khatar badan oo ku hareeraysan isticmaalkeeda. haddaba soo laabashada radiation-ka ama shucaaca wuxuu keeni karaa xanuuno kuwaas oo halis u ah caafimaadka iyo nolosha bini'aadamka. inta badan siinta doos ka badan inta loogu talagalay qofka ayaa waxay keeni kartaa halis caafimaad sida xanuunka kansarka oo aad halis uga ah qofka bini'aadamka. haddaba howlwadeenada caafimaadka iyo dadka la jooga bukaanada waxaa si weyn loogu dardargelinayaa in ay ka fogaadaan ku laabashada goobaha raajada si aysan dhibaato ugu soo gaarin radiation-ka ama shucaaca ka baxaya raajada. halista ugu badan waxay sii imaanaysaa marka dhakhtarka uu isticmaalo doos ama xaddi ka badan xaddigii loogu talagalay qofka bini'aadamka ahaa, midaas oo caqabad ku noqon karto sii socoshada caafimaadkii caadiga ahaa. Hey hey la la la